waxna kuma imaado dadaal la'aan dadaalkuna runtii waa ninba siduu wax u qabto dad baa doonay inay markaaba wixii helaan xoogaysa saaraan pressure ay isku ridaan dadna ayar way wax iskaga qabsadaan tartiibtooda wax iskaga qabsadaan marka waxaan kamid ahay dadka tartiibtooda wax iskaga qabsada waxaan ku rajaynayaa inaad tartiibtaada iyo deganaansho iyo ayartaada wax iskaga qabsato qoyar socde qodiximo muddo maalin kaste wixii aad rabtay inaad qabsato haddaad kolba in yar ku biiriso hadhow toole insha Allah waxaad gaari doontaa natiijada aad doonayso fahanti hadduu Ilaahay yiraahdo dhowr tusaale ku siinaya laga yaabo inaad hore u maqashay tusaalahan anigu waan isku dayay wayna rumowday adigana waxaan ku rajaynayaa inay ku rumoobi doonto tusaalaha waxaa kamid ah matalan haddii aad doonayso inaad buug qorto maalin kaste haddaad hal page qorto bal xisaabi sanadkii intay ku noqonayso sanadkii waxay ku noqonaysaa 365 page ama 364 page taas way ka dhigan tahay sanad walba xabad buuga waad soo saari kartaa sanad kaste ama sanadaaf sa jeceshahay hal buug waad soo saari kartaa sidee taasi ku imanaysaa waxay ku imanaysaa inaad maalin walba aad isa siiso ballan aad naftaada la qabsato ballantaasoo ah maalin kasta saacada ilaa saacada amba gelin hore ha noqoto amba gelin dambe ha noqoto amba habeen ha noqoto xilliga aad doonayso waad ka dhigan kartaa umuurkaagu ku siinayo inaad wixii aad ku qabato muhiimadu maxay tahay inaad maalinta lagu waayin maalin kasta insha Allah dad caafimaad qabto wax walba okay ku yihiin inaad maalin kasta aad qorto hal page halka page wuxuu keenayaa sanadka dhamaadkiisuna hal buug ku noqdo insha Allah in yar hadaad dadaalka kolba cishaba talaabaad qaado kolba wax yar aad ku biiriso waxa doonayso wax muhiim oo fiican ay ku soo saaraya waxaan kamid ahay dumarka raadiya inay iska ridaan hilibka ama baruurta informationada ku xiran arimahaas aan akhristaa waxa kaloo maalin meel ka akhrisanayay in haddii aan maalin kasta lugeeyo 40 mirir ilaa 60 mirir inta u dhaxaysa uu kaaga dhici karo 300 ilaa 500 calories ayaa kaaga dhacaya taasoo u dhigmata maalin kasta hadaad iska rido 300 amba 500 calories in maalin kasta hadaad iska ka dhaco weegi waxa weeye 1 kilo ba ka dhacaya arintaas waxaan siri ma dhici kartaa marunba waan isku dayay waxaana ii soo baxday inay run tahay soo maalin kasta waxaan lugeyn jiray 40 mirir ilaa 60 mirir u dhaxeeya markii dambe socodkii waan la qabsaday oo 60 mirir waan gaarsiin jiray maalin waxa dhici jirtay inaan 35 mirir ka bacdi aan daalo haddana 40 mirir baan la qabsaday haddana 60 mirir baan la qabsaday haddana imika maantadan aan joogo waxaan la qabsaday saacad iyo 10 minute ilaa aan lugeyn karo marka waxani waa barasho waa niyada waxa weeyaan niyaduna waxay ku imanaysaa dadaalkaaga markaad ka aragto in natiijo ka soo baxayso soo waxa dhacday weegi gudaheedii marka weegi dhamaatay weegi gudaheedii aan dadaalay weegi uu dhamaaday inaan ismiisaamoon arko inuu 1 kilo la sheegay iga dhacay haddana weegi ku xigay 1 kilo haddana weegi ku xigay 1 kilo ma yahay inaad meelaha 700 gram 800 gram ba iga dhacay ama 1 kilo ba ka dhicay ama wax ka yar laakiin haddana muhiimadu waxa weeye inaad wixii ku wado in hadaad doonaysid wax samaysid maanta koow ka bilow markaad maanta koow ka bilowdo waa inaad samayso system aad ku shaqeyso waayo waxana waa system waxooyaan waa qaabkaad aad u shaqeynayso ayaad soo diyaarinaysaa wada wax walba oo aad rabto inaad samayso in horta u baahan tahay niyad markaad niyadda ka keentana waxa ku xiga qaabkii aad u sameyn lahayd qaabkaasina walaalayaal ma ahan wax mar kaliya kugu soo degaya ee waxay u baahan tahay maalin kasta inaad wax qaban karto maalin kasta inaad tallaabo sameyn karto maalin walba Ilaahay abuuray uu sameeyay inaad dadaal la iman karto dhowr kan tusaale aan soo sheegay amba example aan soo bixiyay haddii uu ku jirin wixii aad doonayso inaad samayso dib ma lahan soo xasuuso adigu wax doonayso inaad samayso kuna dadaal aad baan dhamaantiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh